بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتي شرفك كسوق قادتي عويس كان آدك وشرفت بدن قيمها بدن ولكن عبد الله قراجينا هل دور كنا عن كل هذا نأ أنا قلفت هذا الشرف بيتاي إن عبد الله قرب كيس كسر موضوع عاوة بوجيسا كله إنه ما أسبوع ميلا بدن بالوسود فري عاوة سكيورتي iyo Acacia Hotel bay noqotay cabdi bile marka ugu horeysa tahniyad ka socota gabadh Faadma Maxamed yiraahdo iga gudoon waa ku hambalyeynaya marka ugu horeysa horta taaban su'aal kale isweydiin soo dhawna waa ku leeyahay thank you wandaway aad baa mahadsantahay cabdi bile wax sahlan maaha in qorista taariikhda lagu dhiirado adiga sidii kugu dhalatay in aad u babac dhigto u adkaysato guuri iyo galab carowna aad u marto inaad taariikhdaasi buugaasi ku sugan halgamayaashii waaweynaa ee reer Djibouti oo ilaahay uga barayno inuu naxariis waasac siiyo aaba xasan guleed abtidoon iyo maxamuud xarbi oo labaduba halgamayaal reer Djibouti ah bal horta taa marka ugu horeysa aad baad mahadsantahay walaal Faadimo haddii aan soo koobo waxa igu dhaliyay fikradda waxa weeyeen horta sideeda kala baa qolkan sameeyay waxa la yiraahdaa education aan ku taqalusay taariikhda aad baan u jeclaa inaan taariikhda qoro laakiin waqti kasta waxa weeyaan waxyaalo duruufo baad ka weecinaya markii aan damcay inaan yiraahdo maanta waan taariikhdan qorayaa dabcan waxay noqotay inaan yiraahdo taariikh dhulkaaga inaan ka qoro wax inaga hadlowna dhaxal noo noqonayo jiilka dambe iyo dadka imikana waxyaalo badan oo waxa jirta suuqa ku jirto la yiraahdo waxa dhacay waa si yar oral un baa loo sheegaa kolkaas si aan waxaan jeclaaday inaan bal si fiican u eego referendumkii ka dhacay 1958 oo nisiraado bal macne laakiin macne ka duwan sida caadiga loo macneeyo macne toujours ku salaysan reer galbeedka ayaa la soo dhigaa laakiin marka waxaan isiri bal si yar oo kale oo labadaba la isdhex dhigo reer galbeedka si ay ku macneeyaan iyo inuu sidaan ku macneeyno so fikradahaas oo kale wad aragtay ma waxay igu dhaliyay inaan isiraado wax anagu taariikh noo gaara inaan qorno oo meel laga bilaabo wayta markii aad maadaama qoraad tahay oo markii horeba aad ka fikirisay aad ku guuleysatay bulshada kala duwan ee reer Djibouti hadday qurbo joogtahay hadday qolqol joogtahay maxaa kala kulantay maadaama wax qaaliya aad qortay su'aashaasi aad bay u fiican tahay waxa jira public oo horta badanka dadka aan la kulmay waa Toronto soo maray Ottawa soo maray Paris soo maray London baan soo maray maanta Djibouti baan joogaa shucuurta dadka badankoodu haddii aan yiraahdaa après 99% wax positif ay warkeen waxay yiraahdeen war taariikh loo baahnaa bay ahayd kolka reaction positif uu noqday oo qofka si inuu siraado ruuxana soo akhriyo aniguna aan ka dhiiban karo fikradeyda laakiin toujours 1% 2% baa jirta ayagu ruuxan wala noo sameeyay waa taariikhan jirno baa la soo qortay weeyaan oo surprise lagu sameystay ayaduna way jirtaa laakiin muhiimadu ma aha dadka fikradooda in maxaa la yiraahdaa kootee loo dhigo waa in la dhageysto uun de lagu qanciyo waxaan hadii aad wax kale haysid de soo badka soo dhig waan eegaynaaday wayta kulli fadhi bay ku fiican tahay waraysiintaas kasi badan waxaan ballan qaadayaa inaad barnaamij fadhiya iyo waraysi dheer oo buuga ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaya aan ka hadlo farxad bay ii ahayd munaasabadan iyo xafladan waxaan u mahad celinayaa dadkii soo qaban qaabiyay oo abaalkeeda leh wax fiican iyo shaqo wanaagsan bay qabteen adigana waxaan ku leeyahay una hambalyo hadii aad inoo soo xidhana adiga ayaa leh aad baa mahadsantahay mar labaad mar saddexaad aad baan u mahad celinayaa walaalaha reer Djibouti xafladda qaaliga soo abaabulay sida fiican u soo sameeyay sacab bay leeyihiin horta felicitation inkastoo dad xoogaa yar socdeen laakiin haddana waxaan u mahad celinayaa dadka iyaguna is soo deplaasayay dad baa meelo dhaadheer ka yimiday inay maanta xafladan ka soo qayb galaan inaguna aad baa mahadsantihiin thank you aad baa mahadsantahay